ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa saaka inay si buuxda ula wareegeen degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ay muddo dheer ka talinayeen kooxda Ahlus Sunnah wal Jamaa. Xoogagga Ahlus Sunnah ayaa la sheegay inay isaga baxeen Guriceel kadib dagaal muddo kooban socday oo dhex maray iyaga iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. ciidamada la wareegay Guriceel ayaa waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin qaybta 12aad ee xoogga dalka oo hadda gacan ku haynta ku haya dhammaan xarumihii maamulka. Arintani ayaa timid xilli degmada Guriceel ay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye kaasoo ilaa xalay kulamo kala duwan ka waday magaaladaasi. xaaladda magaalada Guriceel ayaa degan waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamadii Ahlus Sunnah ay ku sugan yihiin duleedka degmadaasi lamana oga waxa ay damacsan yihiin. shalay ay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay sidoo kale la wareegeen degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan Ahlus Sunnah kadib dagaal khasaare geystay oo halkaasi ka dhacay. isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Ahlus Sunnah ayaa salka ku haya khilaaf siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay labada dhinac kaasoo la xiriira arrimaha dhismaha maamulka Galmudug. mana jirto wax war oo ka soo baxay dhanka Ahlus Sunnah wal Jamaa oo ku aadan la wareegitaanka ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. laakiin shacabka ku dhaqan magaalada Guriceel ayaa cabsi xoogan muujinaya iyagoona ka baqaya in ciidamada Ahlus Sunnah weerar ay soo qaadaan.